munaasabad ballaadhan oo lagu xusayay aasaaskii ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Ceergabo. Saraakiisha ciidamada qaranka ee gobolka Sanaag, taliyayaasha ciidamada booliiska badda, socdaalka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madax dhaqameed ayaa kala qayb galay munaasabadda xuska maalinta ciidanka qaranka. Waxaana munaasabadan ugu horreynba ka hadlay Rashiid Cali Jaamac, ammaanduulaha ciidanka qaranka ahna kusimaha taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag. Madax dhaqameed iyo taliyayaasha booliiska badda iyo socdaalka ayaa iyaguna halkaasi dhammaantoodba uga hambalyeeyay ciidamada qaranka. Aasaaska ciidanka qaranku wuxuu ka bilaabmay shirkii Boorame dawladdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu soo aasaasay gobolka Awdal ayuu ka bilaabmay waayeelkii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii halkaa isugu tegay markii dawladda halkaa lagu soo aasaasay oo dawladda halkaa lagu soo dhisay ayaa waxa loo baahday ciidankii dawladda salka u dhigi lahaa ee ka shaqayn lahaa xasiloonida maadaama ay jireen ciidan beeleedyo ku baahsan gobollada dalka. Sidaa darteed waxa loo sameeyey hubka dhigistaa ka bacdi waxa la aasaasay 1994 labadii guuto ee ugu horreeyey koowaad iyo labaad baa laga aasaasay Hargeysa. Sidaa darteed maanta waxay ku beegan tahay 28 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii maalinta. dawladda Boorama lagu soo dhisayna waxaa madaxweyne ka ahaa Maxamed Ibraahim Cigaal, madaxweyne ku-xigeenna waxaa ka ahaa Cabdiraxmaan Aw Cali. sidaa darteed muddada ciidanku 28 sannadood ahaa ee uu soo jiray tallaabooyin badan buu qaaday. 28 guuradii aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aasaasay hambalyo lagu naaloonayo waa ciidamada qaranka mar labaad iyo million times hambalyo. Hambalyeynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuradoodii ka soo wareegtay. ciidanka qaranka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay waa kuwa lagu seexday waa kuwa lagu hurdaa. waxaanu ku hambalyeynaynaa oo hambalyo ugu diraynaa meel kastoo ay joogaanba in sanadkiisa ku gaadhaan barwaaqo iyo bashbash. 28aad oo maanta ku beegan aad iyo aad baanu ugu hambalyeynaynaa dhammaantood ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo meel kastoo ay joogaanba waan salaamayaa. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaana rajaynaynaa inay sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash ku gaadhaan. intaa kadib waxaan ku faraxsanahay saraakiisha la dalacsiiyey 15 ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana ugu hambalyeynaa gobolka Sanaag iyo dhammaan ciidanka qaranka hambalyan leh. aad baan ugu faraxsanahay sanad guurada 28aad oo aan runtii ciidankii guutadii koowaad ee qaranka ee 94kii kow laga bilaabay aan ka mid ahaa oo maanta 28keedii joogo. aad baan ugu faraxsanahay. aan ku hambalyeynayaa waxaan kaloo hambalyeynayaa saraakiisha 17 sarkaal ah ee u dallacay derajada sarkaal sare. qaranka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag saraakiishiisa sarkaal xigeennadiisa dablaydiisa xaasaskooda caruurahooda ehelkooda inta ay jecel yihiin dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo sanadkiisa xiga bashbash iyo barwaaqo ku gaadha. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saaxiibbaday rag badan oo aan jecelahay oo dalkan qiimo badan ku leh oo qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka ka tirsan oo maanta dallacay oo hortayda fadhiyana 17 xubnood ee hortayda ku dallacay ee darajada garbaha sudhay. waxaan leenahay hambalyo. saldhigga saddexaad iyo taliyahooda Rashiid Cali Dhigare waxaan leeyahay hambalyo. ciidanka qaranka anigu waa ka tirsanaa jiray haddana shaqo kaleba ma hayo oo ciidankii baa ku noqonayaa. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay badhasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo maayir ku-xigeenka magaalada Ceergabo waxayna hambalyo u direen ciidamada qaranka Soomaaliland.
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa midhihiinnaannu ku gamaanaa midhihiinnaannu ku fadhinaa midhihiinnaannu maamul ku nahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiin darajo walba oo aa leedihiin waxaan aad iyo aad si gaara ugu sii mahadnaqayaa ciidamada dallacay ee darajada dallacaaddu maanta u soo baxday ee 15 sarkaal ah insha allahu weliba wax kalena waa idiin ogo waa inoo soo badanaysaa haddii alla idmo hambalyo ciidamada qaranku meel kastoo ay joogaan runtii waa farxad iyo waa hoyga lagu seexdo oo kuwa sababay inaan cashuurta gurno oo kuwa sababay inaannu ku noqonno xildhibaanno iyo xuduudaha dhammaanba sugay waxaan leeyahay hambalyo ciidamada qaranka meel kastoo aad joogtaan runtii farxad bay noo tahay ka golo degaan ahaan degma ceergaab ahaan inaannu maanta kala soo qayb galno ciidamadayada qaranka ee ku sugan khaasatan degmada ceergaabo sanad guuradoodan cabdiraxmaan maxamed xidig bulsha t v ceergaabo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed